duleedka miriyo doolan ku dhasho. bismillahi rahmaani rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin mar labaad waxaan ku soo noqonnay magaaladii Araabi iyo dooxeega cajiibka ah ee biyo kulul hadda meeshaan fadhino ee hoos marayo iyo uumiga soo baxaya arkasaani waa biyo kulul iyo dhulkayga cajiibka ah doorka kan waxa yimiday oo soo raacnay oo safarkan cajiibka ah ugu helinaya akhyaar koob iyo 10 nina يعني سفر كهرة أيها كودا ساموبي مقالة الرابي ولا سكودا شاقي هل كانوا يمكن عمران أو ضد يمادين وانو أرقني هاد كده بريء الرابي وحلينا هو طل يقرابي إيه البولني وذا يمدي مقالة دي يبيه دي هنا نين كاستاكو سيدي محوها وحلا يقانا يسكبوه ركروجا حسيد للدبيو ينوع كاستوا على نقضي ولا أصحاب تدا كنا شارع تعاني كاستوا موجودين دونا ماشي حقوق أركيو نوع يهيد كسر هذا قفكي وصباط iyo qofkii dhabar xaruunay qofkii meelo badan ka cabanaya ya xaga uu imanaya oo isku daweynaya xagaas oo kale yaa biyaha isku fariisanaya wallahi horta waxa nimcada meesha taala dadkii oo dhan waxa oo lahaa dadkii meelaha kala jooga war xaga u soo dalxiistay meesha aan dalxiis loo bixiyo waa shirkadda iyo dadkii lacag leeyahay haka fikiraan sidii dalxiis fiican loogu sameyn lahaa dooxan waxyaabaha aad ku arkayso waxa kamid ah waxyaaba aad kaaga yaabinaya oo tacajub badan iyo la yaab badan ugu keenaya oo ah in maxaa heedaayay qaabka iyo in maxaa heedaayay abuurka Ilaahay uu abuuray oo ay kamid yihiin biyaha kulul in maxaa heedaayay caafimaad kaan in maxaa heedaayay qofka u wanaagsan sidoo kale in maxaa heedaayay qofku oo ku cimro qaadanayo oo wax badan oo ka in maxaa heedaayay ka deehanayo biyihii oo waxaad arkaysaa si toos ah buurta uga soo baxaya deetana in maxaa heedaayay meel kale ka imanayaan hayna jirin laakiin isha buurta si toos ah uga soo baxaya ayaad arkaysaa marka waxaan bulshada ugu baaqaynaa inay halkan soo booqdaan oo cilmi badan iyo aqoon badan ay ka kororsadaan aad baa u mahadsantiin waxa maalmaha meesha iga baxday oo waxa weeyaan muhiimadeeda lahayd biyaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha uu ku abuuray oo meelba meesha ka hooseyso hadana waxa weeyaan ka sii qawowday meelba meesha ka kulushayna ay ka sii meelba meesha ka sii sareysan ay ka sii kulushay wuxuu ka soo baxayaan wax weyn dhagaxda Ilaahay uu meesha ku abuuray biyo ka soo baxayaan waxyaalaha la yaab kale oo arko waxa kamid ah caafimaadka guud ee laga helayo dooxa waxa inta u sirraacsan in dadka deegaanku ay u diyaariyeen meelo fara badan oo احتياجات kala duwan leh oo qof walba meesha uu rabo salahaan kula caafimaadka ka dayo kale uga faa'iideysan karo oo loo diyaariyo loo hagaajiyo baa runtii kamid ah inta badan marka ahlunaarka rabbi subhanahu wa ta'ala ka sheekeynayo cuntadooda waxa kamid ah saqoon geedkaliya waxa laga yaabaa dadku inay yiraahdaan sidee ayaa u geed uga dhaxbixi kara biyo ama nar uga dhaxbixi kara qofka su'aasha doonaya jawaabteeda inuu helo rabbi ay yimaad waxa arkaysaa in shajarada saqoon geedkii ma oo dhammaan geedkii laakiin waxa weeyaan sida madarta geedka geedku ugu dhax bixi karo biyaha kulul marka meel uu cibro qaato weeyaan aniga iyo asxaabteeda aad iyo aad baan mar labaad mar saddexaad baan aan maaragta ugu faraxsanahay nimanno markii koobaad maaha markii labaadna maaha insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in badan inaan nimanno sababtoo ah wax kale ma ahayna وأنا كنت عبارة قاضي ربي سبحانه وتعالى كون كيسان في فيرنا. كما لا يخفى على شريف علمكم أن الآيات قسمان آية كونية تشاهد وآية قرآنية تنطق ومن آيات الكونية التي تدل على عظمة الله الجبال هذا الجبل الذي يقع خلفي يخرج تحته ماء حار بلغ من الحرارة أشد ما يكون والناس يأتون إليه للاستشفاء وكثير من الناس أخبرونا أنهم وجدوا الشفاء بإذن الله وهذا يدل على عظمة الله وأنه وضع في كونه أشياء تدل على عظمته وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وهذا الماء الحار الذي يخرج من تحت هذا الجبل التي تقع خلفي يعني تتعجب سبحان الله الخبر ليس كالمعاينة عندما تسمع يكون شيئا وعندما تأتي ترى شيئا عجيبا تجد يعني على قدرة الله وعظمته كثيرا العيون التي تنفجر من الأحجار أو من الجبال
معظمها ماء عذب أو بارد. أما هذا الماء يختلف عن العيون التي سمعناها أو رأيناها، فماؤه حار وفيه شفاء للناس، وهذا من رحمة الله للناس. هذا هلكن aan joogno biyahaas waan dari karaa waa biyo qabow gacanta ma gelin karaysid way ku gubayaan waa aayaadka ilaahay una baahan dhulka in la soo eego oo la fiiriyo ku baxay dalxiis anka iyo galbeedka magaalada Boorama waxaan joognaa hadda dooxa biyo kulul oo ka tirsan magaalada Araabi halkaas oo ay tahay markii ugu horeysay aan soo booqdo aad iyo aad baan u faraxsanahay. duleedka miriyo doolan ku dhasho anoo daayar baan qaloocan degno bulshooyi diridha baan dugsiga ka galo hargeysan dabadeedu diga rogano balliga daami baan dabaal ku barto maraan dila maray gugu daay daraan daray dayma dhugashaday dalxiisay burciyo daaliya surado daraawiish baan la soo digriyo duxadii nuugaal ku doogsada